riyada dabaqalooca, riyada faraska, riyada eyga maxay ku fasireen riyooyinkan culimada riyada fasira. haddii aad mid ka mid a riyooyinkan horay ugu riyootay ama riyooyinka kale oo aan sheegi doono, muuqaalkan ayaad uga faa'iidaysan doontaa shar iyo khayr wixii ay kuu yihiinba. laakiin haddii aad qof muslim ah tahay, waxaan kaa codsanaa inaad muuqaalkan like saarto siina sheer garaydo si uu u gaaro dhammaan dadka muslimiinta ay uga faa'iidaystaan. haddii aad ku riyooto bahalkan loo yaqaano dabaqalooca ama hangaralaha, riyadiisu ma ahan mid la mahdiyo, ma ahan mid wanaagsan, waxayna tusinaysaa inaad ku riyooto bahalkan dabaqalooca ah in qaar ka mida dadka qaraabada kula ah ama kuu dhow ay cadow kugu yihiin oo ay dhagar kula doonayaan ama xumaato uu kula doonayo, waxay rabaan ha ahaadaane. haddii aad ku riyooto dabaqalooci oo ku qaniinay intaad riyada ku jirto inuu dhibaato kuu geysan doono shakila'aan qof qaraabadaada ka mid ah oo haddana cadow kugu ah, laakiin haddii aad ku riyooto adigoo dabaqalooci dilaya ama gurigaaga ka cayrinaya, taasi waxay tusinaysaa inaad ka guulaysan doonto dadka cadowga kugu ah oo qaraabadaada ah oo cadaawadda kuu qarinaya. laakiin wuxuu yahay farqiga u dhexeeya inaad hangarale ama dabaqalooc ku riyooto ama inaad mas ku riyooto. labaduba waxay tusinayaan dad cadow kugu ah, laakiin dabaqaloocu waxa uu tusinayaa cadowga qaraabada kula ah, maskuna waxa uu tusinayaa cadowga dadka kaa fogfog. wallaahu aclam, ilaahay ayaa og xaqiiqada. riyada eyga ama in ey lagu riyoodo waa ay isku khilaafeen culimada riyada awila ama riyada fasira. qaarkood waxay yidhaahdeen waa cadow, qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa saaxiib wanaagsan. laakiin waxaa lagu kala saari karaa inaan taxliilinno ama fiirinno sawirka ama sidii uu u ekaa ama xaaladii aan ku aragnay. xaalad cadaawad ayay ahayd, asagoo ku cabsi gelinaya, asagoo ku handadaya ama asagoo ku qaniin raba. waxyaalahaas oo dhan waxay tusinayaan cadow cadowyaashaada ka mida inuu dhagar kula doonayo. haddii ay eeye badan yihiin, waa cadowyaal badan oo raba inay noloshaada burburiyaan. hadduu hal ey oo keligiisa yahayna, waa hal cadow oo raba inuu noloshaada burburiyo. waxaana lagaa rabaa inaad dadka kugu hareeraysan oo dhan baaritaan ku samayso, sidoo kalena aad digtoonidaada qaadato. maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aanka kariimka ah ku yidhi, yaa ayuhaladiina aamanuu khuduu xidrakum, dadka iimaanka lahow qaata digtoonidiinna. taasi waa haddii aan eyga ku aragno suuro ama xaalad cadaawad ah, ama haddii aan ku aragno xaalad farxad ah, xaalad wanaagsan. maxaa yeelay sidaan ognahay eygu waa xayawaan caqli badan, saaxiibtinimada ku wanaagsan, in la rabaayadaysto ku wanaagsan. marka haddii aan xaalad wanaagsan ku aragno, waxa ay tusinaysaa, tusaale ahaan waxaad aragtay adigoo la cayaaraya, asagoo kula cayaaraya, asagoo dhinacaaga jiifa. waxyaalahaas oo dhan waa riyo wanaagsan. qofka arkayna waxaan leeyahay bishaarayso. waxaa jira qof wanaagsan, ama ha ahaado qof dhiig ahaan ama dhalasho ahaan kuugu dhow, ama ha ahaado qof saaxiibtinimo iyo darajo kale kuugu dhowe. almuhim waxaa jira qof adiga kuu dhow, ku danaynaya, muhiimad ku siinaya, ku ilaalinaya, adiguna sidoo kale aad u ilaalinaysid haddaad rabto qofkaas yaadan garan. sidoo kale riyada farasku waxay ka mid tahay riyooyinka wanaagsan ee la mahdiyo. waxyaalo wanaagsan oo nolosha qoyska saamayn badan ku leh ayayna tusinaysaa. haddii aad dalbataana muuqaalka xiga ayaan kusoo samayn doonaa. ugu yaraan 3 qof asxaabtaada ka mid a u sheergaree muuqaalkan.